مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقاء وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء مصطفى مصطفى للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. kulanti wacan waxaan hore usii wadaynaa duruustii siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam. xalaqadii aan soo dhaafnay waxaan kaga soo hadalnay dhibaateyntii la dhibaateyn jiray saxaabada ridwaanullaahi calayhim. dhowr tusaale ayaan ka soo qaadanay. waxaan usoo gudbaynaa dhibaateyntii nabiga calayhi salaatu wasalaam la dhibaateyn jiray ayadoo weliba laba arin ay keensanayeen inay dadku aysan ku dhiiranin nabiga calayhi salaatu wasalaam. labadaas arrin oo ah reer bani hashim abi taalib oo nabiga calayhi salaatu wasalaam taageero siinayay, gaaladuna ay kaga gabanayeen nabiga calayhi salaatu wasalaam inay kusoo dhiiradaan. iyo midda labaad oo ah nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ah qof qiimo iyo makaano aad dadka dhexdooda ugu dhex lahaa, qof laga haybeysto oo runtii qof liita oo xaqiira maahane qof kale uusan ku dhiiranayn nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu dhibaateeyo. marka laakiin labadaas arrinba kama aysan hor istaagin in nabiga calayhi salaatu wasalaam dhibaatooyin badan loo geysto. waxaana dhibaateynta calankeeda qaaday oo hogaaminayay abujahal rag uu ka mid yahay iyo cuqba ibnu abi mucayd iyo rag kale ayaa runtii iyo abulahab ayaa hawshaasi dhibaateyn badan nabiga calayhi salaatu wasalaam u geyn jiray. haddaan ka bilaabno raggii nabiga calayhi salaatu wasalaam dariska la ahaa, waxaa ugu horeeyey adeerkii abilahab, waxaa kaloo ka mid ah cuqba ibnu abi mucayd iyo rag kale. way dhibaateyn jireen nabiga calayhi salaatu wasalaam. waxay samayn jireen inay gurigiisa hortiisa qashin iyo wasakh ay ku daadiyaan. waxay samayn jireen wadada uu maraayo inay qodxo ay ugu daadiyaan. waxaan aad ugu badnayd arrintaas islaanta la yidhahdo umu jamiil oo abulahab xaaskiisa ah ayaa ugu badnayd. waxay kaloo ku dari jirtay, waxay ahayd naag aad u afxun, marka way cayn jirtay nabiga calayhi salaatu wasalaam. markii ay soo degatay suuraddan suuratulmasad oo ilaahi subxaana watacaala uu leeyahay tabbat yadaa abi lahabin watab maa aghnaa canhu maaluhu wamaa kasab sayaslaa naaran daata lahab wamra'atuhu xamaalata alxatab fii jiidiha xablun min masad. waa loo sheegay in quraan iyadoo ku soo degay, marka way soo baxday iyadoo dhagax gacanta ku wadata. nabiga calayhi salaatu wasalaam ay soo aaday oo kacbada agteeda fadhiya. waxaana nabiga la fadhiyo la jooga abubakar sidiiq. marka way timid, ilaahay wuxuu ka qariyey inay nabiga aragto. waxay un arkaysaa abubakar. marka abubakar la hadashay waxay ku tiri aaway saaxiibkaa, waxaa maqlay inuu gabay tiri aniga igu caynayo, marka haddaan arki lahaa bay leedahay dhagaxan ayaan afka kaga dhufan lahaa. waxay rabtaa nabiga calayhi salaatu wasalaam inay dhagaxa afka kaga dhufato. abubakar baa marka la hadlay oo ku yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam ma ahan shaacir, weligiisna gabay ma unan tirinin. marka waxay ku tiri adaa ka run badan qoladii ii warantay, wayna iska laabatay. marka abubakar nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu kusoo jeestay yaa rasuul allah miyay ku arkaynin miya? markaasuu yiri nabiga maya, ilaahay subxaana watacaala ayaa ka qariyey indhaheeda inay aniga i aragto. marka runtii ilaahay subxaana watacaala ayaa
ka badbaadinayay rasuulkiisa islaantaa maaragtay xumaanta u soo banbaxday. Abulahab wuxuu kaloo sameeyey labadiisa wiil Cutba iyo Cutayba ayaa waxay kala qabi jireen maaragtay laba gabdhood nabiga calayhi salaatu wasalaam dhalay oo Ruqayya iyo Ummu Kalthum ah. Marka wuxuu ku amray inay furaan ayuu ku amray soo isdhahaya nabiga ku dhib soo isdhahaya maaragtay. Marka Cutayba isagu dhibka intaa kuma ekaysanine wuxuu sameeyey inuu nabiga calayhi salaatu wasalaam u tago oo maaragtay candhuuf ku tufo. Candhuuftii laakiin nabiga calayhi salaam ma aysan gaarin. Caay iyo aflagaado qur-aankii wax ka sheego ayuu sameeyey. Marka nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa habaaray oo wuxuu yidhi allahumma sallit calayhi kalban min kilaabika ayuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam. Marka ducadii markii uu maqlay runtii waa uu ka naxay. Abulahab laftirkii waa uu ka naxay. Marka safar uu aadayey Cutayba, safar ganacsi ah oo rag reer Maka isla socdeen ayuu ku baxay. Marka meel bay degeen. Meeshii markay degeen qoladii musaafiriinta ah qolaa la hadashay waxay tiri meeshaan maxaa u soo degteen? Meeshaan libaaxa ayaa aad ugu badan oo maaragtay hore gadaal u mara. Marka mar hadday degeen hadda waxay isdhahdeen bal caawa iska jiifta subaxii iska baxa. Marka Cutayba aad buu u naxay. Maaragtay habaarkii buu soo xasuustay nabiga calayhi salaatu wasalaam uu habaaray. Wuxuu yidhi maaragtay warnimayo caawa hal ii waardiye xaalkaygu waa xaal. Marka waxay sameeyeen wixii alaab ay wateen ayay si maaragtay wareeg ah u dhigeen oo isku hareereeyeen. Kadibna ayaga ayaa gudihii galay oo isku hareereeyey. Cutaybana gudaha dhexbartanka ayaa la geliyey si maaragtay u badbaado. Laakiin qof Ilaahay subxaanahu wa tacaala haligii miyaa la badbaadin karaa? Libaaxii habeennimadii u yimid isagu waa libaax amran oo hawl mucayan u socda. Waa uu soo booday alaabtii iyo dadkii oo ka soo booday. Cutayba uu gudaha ugu tagay madaxuuna ka kala jebiyey. Meeshaa marka Ilaahay subxaanahu wa tacaala abaalkiisi ku marsiiyey adduunka kii aakhirana waa u dambeeyaa. Ilaahay subxaanahu wa tacaala naga badbaadiyo waddada ay wax la mid ah. Cuqba ibn Abi Mucayd isagu maaragtay maxay ahayd darisnimadii uu nabiga ku dhibi jiray kaliya kuma uunan ekaysanine. Maalin maalmaha ka mid waxaa dhacday nabiga calayhi salaatu wasalaam oo Kacbada agteeda ku tukanaya ayaa maaragtay rag uu ka mid yahay Abu Jahl iyo Cuqba ibn Abi Mucayd iyo Cutba ibn Rabiica iyo Shayba ibn Rabiica ragga ay ka mid yihiin ilaa 7 qof meesha ay fadhiyaan. Qolo ayaa macnaha meesha maaragtay neef ku gowracatay oo maaragtay neef geela. Marka waxyaalaha maaragtay urku jirta ee laga soo saaro neefka oo marka yaa soo qaaday yiri mindhicrahan iyo waxyaalaha kale isku jira dhiigdhiiga leh yaa soo qaaday oo Maxamed markuu sujuudo dhabarka ka saareeyo maaragtay garbihiisa labada garab dhexdooda ka saareeyo ay yiraahdeen. Cuqba ibn Abi Mucayd oo nin aad u khubti badan ah ayaa yiri ana arrintaa qabanaya. Marka wixii soo qaaday nabiga calayhi salaatu wasalaam markii uu sujuuday ayuu dhabarka ka saaray. Marka xaalad aad maaragtay meeshii marka waxay bilaabeen inay qusul la daataan oo maaragtay garbaha isku garaacaan sidii uu qoslayaan macnaha. Marka Faatima bintu Rasuulillaahi baa loo sheegay oo markaa soo orday oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ka qaaday wasakhdii wixii maaragtay ka dejisay. Nabigana markuu salaadiisa dhamaystay wuxuu Ilaahay u baryay subxaanahu wa ta'ala uu yiri allahumma calayka biquraysh. Kadibna raggan ayuu maaragtay mid u sheegay uu tilmaamay 7 uu tilmaamay magacyadooda uu sheegay waxaa lagu wada dilay dagaalkii maaragtay Badar ay ku wada dhinteen oo maaragtay saxaabiga xadiidka warinaya uu leeyahay waxaa arkay kulligood oo maaragtay meyd ah oo meesha yaala oo qoraxda aad bay u kululeed. Marka qoraxdii ay bedeshay meydka sidiisa jawiga ayuu ku xiran yahay. Haddii uu jawiga aad u kulul yahay degdeg buu isku bedelayaa. Haddii jawigu uu qabow yahay waxaa dhici karta xoogaa inuu daaha maaragtay. Marka aad igu isbedelay baan arkay uu leeyahay maaragtay fi yawmi Badr. Maalin kale nabiga calayhi salaatu wasalaam oo Kacbada dawaafaya ay haddana waxay sameeyeen maaragtay meeshii Kacbada geeskeeda inta fadhiisteen bay horta marka hore waxay ka sheekeeyeen waxay yiraahdeen ninkan aad baan ugu sabarnay waa maaragtay maxay ahayd aad baan ugu dulqaadanay intuu diinteenna maaragtay wax ka sheegay oo aalihadeenna wax ka sheegay odayaasheenii hore maaragtay ku tilmaamay dad khaldan oo dhunsan inay ahaayeen. Marka waxay yiraahdeen wallahi ninkan maaragtay si zaa'id aan ugu dulqaadanay. Marka nabiga calayhi salaatu wasalaam baa meeshii soo maray oo Kacbadii ku dawaafo bilaabay. Markuu soo agmaraba agtooda meesha ay fadhiyaan soo maraba waxay bilaabaan inay caayaan oo aflagaadeeyaan oo ay maaragtay maxay ahayd hadallo xunxun ku tuuraan. Marka maxay ahayd mar labaad oo haddana soo mara sidii oo kale sameeyaan haddana mar saddexaad. Markii saddexaad markay sidii sameeyeen ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam u istaagay oo ku yiri atasmacuuna yaa macshara quraysh maqlaysaan walladii nafsii biyadihi
laqad ji'tukum bidabx allah ay nafteyda gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee waxaan idinla imid buu yiri maaragta gowrac baan idinla imid maaragta kelimadii baa marka aad u taabatay marka nabiga calayhi salaatu wasalaam sidaan kulul walow muusan ugula hadlin marka arrintii bay xoogaa la naxeen markii waxay bilaabeen nabiga calayhi salaam inay dejiyaan yaa abalqaasim marka xoogaa yani ay maaragta jawigii qaboojiyaan ay bilaabeen maalinkii labaad ayay haddana xoogaa mindhaa yani jawigaa ay dejiyeen wixii baa la fool xumaaday marka nabiga calayhi salaatu wasalaam markii uu soo galay uu damca inuu maaragta meeshii dawaafo kacbadii dawaafo hal maray ku soo wada boodeen oo ay maaragta isku hareereeyeen markaasay maxay ahayd qoorta waxaa weliba maaragtay qoorta aad uga qabtay oo cuqba ibn abi mucayd ilaa ay maaragtay ayagana waa isugu tageen ciijiyeen yani nabiga calayhi salaam halis ay geliyeen maaragta ilaa ay dili rabeen macnaha marka abubakar sadiiq ayaa arkay oo markaa yani kusoo orday soo dhex galay ka fujiyey nabiga calayhi salatu wasalaam asagoo dhahaya maaragtay ataqtuluuna rajulan an yaquula rabbi allah asagoo dhahaya macnaha markii uu ka fujiyey marka nabiga calayhi salatu wasalaam gaaladii marka abubakar ayay ku jeesteen asagay marka aad u garaaceen radia allahu canhu abujahal asaga wuxuu nabiga calayhi salaam ka celin jiray inuu maaragtay xaramka ku tukado oo maaragtay kacbada agteeda inuu ku tukado ka celin jiray marka maalin buu nabiga calayhi salaam meeshii ku tukaday intuu u yimid uu ku qayliyey uu yiri maaragtay soo ma aanan kaa celinin alam anhaka can haada alam anhaka can haada ayuu ku yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam marka nabigii baa marka u digay oo u goodiyey oo maaragtay maxay ahayd yani allah subxaana watacaala qabashadiisa iyo halaag uga digay si uu uga waantoobo waxaan uu samaynaya macnaha markaasuu yiri yaa muxamed biayi shayin tuhadidunii maxaa aniga iigu goodinaysaa maaragtay aniga wuxuu yiri meeshaan ninka ugu rag badan baan ahay yiri maaragtay maxay ahayd inii la akharu hada alwaadi naadiyan ma garatay ninka ugu tol badanoo ugu taageero badanoo dad maanta uu soo kacsan karo soo maaragtay ugu tol badan baan ahay macnaha marka maxaad iigu goodinaysaa buu leeyahay maaragtay ilaahay subxaana watacaala marka wuxuu soo dejiyey aayaadkan suuratulcalaq ku jira oo ilaahay subxaana watacaala leeyahay ara'ayta aladii yanhaa cabdan idaa sallaa ara'ayta in kaana cala alhudaa aw amara biاtaqwa ara'ayta in kadaba watawallaa alam yaclam biana allaha yaraa kalaa lain lam yantahi lanasfacan binnaasiyah naasiyatin kaadibatin khaati'ah falyadcu naadiyah sanadcu zabaaniyah kalaa laa tutichu wasjud waqtarib marka addoonkaa marka cibaadada laga celinayo salaada laga celinayo nabiga calayhi salatu wasalaam oo hanuun ku taagan oo dadka maaragta xaq ugu yeeraayo oo ilaahay subxana watacaala inay hoggaansamaan faraya ma garatay midkaa iskibirsiinayo beeninaya oo maaragtay maxay ahayd yani awood iyo xoogga sheeganayana waa maaragtay abujahal marka iyo wixii la halmaalo oo waddadiisa raaca marka ilaahay subxana watacaala inuu qabanayo ayuu maaragtay noogu sheegay waana ilahi subxana wataala waa qabtay adduunkana maaragtay waa kaa yani mudankiisa lagu marsiiyey aakhirana cadaab iyo halaag ayaa maaragtay sugayay marka yani waxaa la yidhi falyadcu naadiya qoladuu leeyahay waa u yeeranayaa maaragtay oo tol iyo taageeriyo xoog baan leeyahay bal ha u yeerto ma garatay sanadcu zabaaniya oo ilaahi subxana watacaala leeyahay waxaan u yeeranaynaa maaragtay waa malaa'igtii maaragtay oo khasanatu naar ah marka qolaas baa ilaahi subxaana watacaala addoommadiisa ah oo maaragtay looba igmadayba in ay shaqo ka qabtaan maaragtay mujrimiinta lamid ah ninkaa iyo maaragtay wax lamidka ah in shaqo ka qabtaan loo diray maaragtay nabigiina waxaa la yidhi kalaa laa tutichu wasjud waqtarib ninkaa maaragtay warkiisa dhag yalaqa u siinin adiga hawshaadii wado maaragtay salaadaadii iyo dacwadaadii wado sidiibu marka nabiga calayhi salatu wasalaam salaadiisa iyo dacwadiisa ku watay allahna ka xifdinayay yani waxa maaragtay ninka abujahal isku dayay marka xifdintaas ilaahay subxana watacaala uu xifdinayay nabiga calayhi salatu wasalaam uuna ka celinayay baan laba tusaale kasoo qaadanaynaa abujahal ma uunan waantoobin hadalkii lagula hadlay iyo maaragtay waxa dhan kuma uusan waantoobin marka laba mar buu wuxuu isku dayey inuu nabiga calayhi salatu wasalaam dilo marka wuxuu sameeyey maalin buu maaragtay nabiga calayhi salatu wasalaam meesha ku tukanayo arkay marka wuxuu yiri maaragtay waa maxamed meesha ma weli ku tukanayaa maaragtay wuxuu yiri markuu sujuudo waan u tagayaa qoorta baanan kaga istaagayaa yiri maaragtay maxay ahayd ayuu maaragtay ku dhaartay maaragtay marka nabiga calayhi salatu wasalaam ayuu soo aaday si uu maaragtay balantaa u qaaday uu u fuliyo laakiin hal mar waxaa la arkay isagoo gadaal u soo cararay oo maaragtay argagaxay baa la arkay markaasaa la yiri maxaa kuugu dhacay yaa abalxakam maxaa kuugu dhacay wuxuu yiri
aniga iyo maxamed dhexdeena waxaa inoo dhexeeya god weynaanta ka batay oo dab ololaya uu ku dhex jira ayaa inoo dhexaysa. waxaana arkayaa yuri ajnixa maarata baalal igu soo duulaya ayaa arkayaa yuri maarata. nabiga calayhi salaatu wasalaam baa marka fasiray wuxuu yidhi hadduu wax yar soo dhowaan lahaa maaragta malaa'igtii baa qaban lahayd oo kala dafi lahayd oo markaas maaragta kala gogoyn lahayd. marka ficlan yani ilaahay subxaana watacaala baa ka xifdiyey rasuulkiisa. waxaa kaloo maaragtay uu isku dayey maalin kale haddana inuu maaragtay nabiga calayhi salaatu wasalaam markaan weliba ka daran tahay wuxuu yidhi haddana maxamed meeshii muu haddana ku tukanaya ma waan toobayo. wuxuu yidhi waxaan qaadaya dhagax weynaanta ka batay oo aniga xataa aanan xajin karin maarata aad u weyn. markuu sujuudo madax ayaan maarata dhagaxaas kaga sii deynaya. waa dil bareera uu qorsheynaya macnaha. wuxuuna ku yidhi raggii saaxiibadiisa ahaa haddaad maaragtay yani ii gacan gelinaysaan reer bani haashim waa idinka, haddaad maaragtay difaacaysaan oo iga celinaysaan na waa idinka. waxay yidhahdeen may waa kaa celinayna cid ku soo gaaraysa mada shaqadaada qabso. abujahal dhagaxii soo qaatay marka dhankii nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu soo aaday. sidii maalin dhoweed ba haddana waxaa la arkay asagoo maaragtay gadaal u soo cararaya oo maaragtay wejigiisa isbedelay oo naxay oo argagaxay magarata ayaa la arkay oo ilaa marka dambe dhagax iska tuuray. markaasaa waxaa la yidhi wareer maxaa kugu dhacay? wuxuu yidhi maaragtay waxaa igu soo duulay yidhi markaan maxamed u dhowaaday yacni neef geela oo aan mid lamida weligii aan arkin oo maaragtay maxay ahayd maaragtay ilkihiisa iyo maaragtay yani aan ka naxay aniga hal mar igu soo booday maaragtay inuu i cuno ku dhowaaday maaragtay. marka kii baan ka soo cararoley maaragtay yani. marka nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu maaragtay ku fasiray inuu ahaa jibriil oo markaa hadduu wax yar soo dhaqaaqi lahaa shaqo adag ka qaban lahaa maaragtay. marka labadii marba nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay ayaa badbaadiyey. marka meesha waxaan ka arkaynaa yani inkastoo maaragtay reer bani haashim iyo ballanqaadkoodii iyo inay maaragtay nabiga difaacayaan iyo abu taalib yani ayagu ma aysan ahayn waxa nabiga calayhi salaatu wasalaam badbaadinayay. waa un sabab ilaahay uu sameeyey nabiga calayhi salaatu wasalaam oo keensanaysay inaanan maaragtay cid kasta aysan nabiga calayhi salaatu wasalaam kusoo maaragtay dhiiranin oo xoogaa gaaladu ay maaragtay xoogaa xisaabtamay wax sameeyaan. laakiin taa kama aysan celinin inay nabiga dhibaateeyaan, inay nabiga maaragtay bal xataa ay isku dayaan inay dilaan. marka taana markaa ay isku dayaan waxaa soo dhexgalaysay cinaayada ilaahi subxana watacaala oo nabiga badbaadinayay maaragtay ilahi subxana watacaala ka badbaadinayay. marka arrintaasna iyadan waxaa waa cibro badan ayaa ku sugan. jawigaas aadka u cakiran ayay dacwadu ku socotay oo saxaabadii maaragtay la ugaarsanayo la beegsanayo, meelo badan lagu dhibaateynayo, nabiga calayhi salaatu wasalaam isagana la dhibaateynayo, oo xaramkii lagu dhibaateynayo, oo gurigiisii lagu dhibaateynayo. jawigaas aadka u adag ayay dacwadii ku socotay. maca daalika dacwadii maynan istaagin. hadday noqon lahayd dadkii soo islaamay tarbiyeyntoodii iyo maaragtay tawjiihintoodii iyo dhisidoodii, iyo hadday ahaan lahayd dadkii cusub ama dadkii kale in xaqii la gaarsiiyo, labadaba maaragtay way socdeen. laakiin waxaa qasab ahayd in maaragtay jaanibka taxadarka in la qaato oo aad maaragtay maxay loo taxadaro. gaar ahaan maaragtay kulamada muslimiinta ay kulmayaan waxay ahaayeen kuwo maaragtay sir ah oo aad looga ilaalinaya maaragtay inay gaaladii arkaan muslimiintii oo meel ku kulmaya. taa oo keensanaysa maaragtay isku dhac inuu yimaado oo runtii muslimiintii dhib badan kasoo gaari karo. marka jawi degan oo ay tarbiyadoodii waxoodii ku qaataan ayaa runtii daruuri ahaa. marka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu kula kulmi jiray saxaabada guri markaa qarsoon oo aysan gaaladii la soconin ayuu kula kulmi jiray. gurigaasna waxaa ahaa guri maaragtay uu leeyahay in la oran jiray maaragtay saxaabada raggii markii hore islaamka kamid oo dhalinyaro ah oo la oran jiray al-arqam ibnu abi al-arqam gurigiisa lagu kulmi jiray. marka wuxuu ahaa maaragtay wiil dhalinyaro ah oo raggii waagii siriyada islaamka kamid ah oo haddana maaragtay reer bani makhzuum ah. waana meesha ugu fog ee la filan lahaa inuu nabiga calayhi salaatu wasalaam guri reer bani makhzuum inuu saxaabadiisa kula kulmayo. meesha ugu horeysa kusoo dhacayso maaragtay reer bani haashim meel un guryahoodii ka mid ah ama waxun u dhow in maaragtay yani uu kula kulmayo. laakiin guriga reer bani makhzuum qabaaisha quraysh qabiilka ugu daran ee dagaalka nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada lagu haayo yani hogaaminayo ayay ahaayeen. abujahal qolada ka dhashay wey maaragtay waliid ibn al-mughiira. marka waa yani guri qoladaas maaragtay qof ka mid ah
yani laakiin muslim ah gurigiisa lagu kulmayo wax marka ugu horey kusoo dhacaya ma ahaan lahayn maaragtay jaahiliyada. gurigaasa marka lagu kulmi jiray oo maaragtay qur-aankii lagu bari jiray oo tarbiyada islaamka lagu siin jiray muslimiinta. riwaayaadka waxay kaloo sheegaan inay guryo kale oo yaryar ay jireen, laakiin gurigan uu ahaa maaragtay midka asalka ee ra'iisiga inuu gurigan ahaa daarul arqam ibnu abil arqam. markii ay dhibaateynta muslimiinta ay ku badatay, nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu u idmay saxaabadiisa in ay u hijroon karaan qofkii doonaya dhankaasi maaragtay bilaad alxabasha. wuxuuna sheegay in maaragtay dhulka uu ka taliyo boqor aanan dadka agtiisa lagu dulminin, waa boqor caadil ah oo dulmiga maaragtay iska fogeeya. marka saxaabadii waxaa markaa dhaqaaqay oo hijradaas u baxay 12 ragga oo saxaabada ka mid ah iyo 4 haweena ayaa markaa safray oo dhankii xabasho aaday. waxaana hogaaminayay Cuthmaan ibn Affaan radiyallahu canhu oo markaa xaaskiisana tahay Ruqayya bintu rasuulillaahi sallallahu alayhi wasallam. marka 12 qof iyo 4 haween ayaa baxay oo dhanka maaragtay u hijrooday alxabasha, ayagoo maaragtay isqarinaya xilli habeena la dhuumanayo, reer Maka la iska ilaalinayo inay arkaan ayay baxeen ilaa ay maaragtay xeebta tageen. meesha ay doon ka raaceen, gaaladiina waqti dambe ay ogaadeen, ay bilaabeen inay raadiyaan si ay u soo celiyaan oo soo qabtaan. laakiin ayagoo xeebtii ka tallaabsaday oo doomihii raacay u tagay ayay maaragtay maxay ahayd meelihii way ka gaari waayeen. marka way iska soo noqdeen qoladii gaalada ahayd. ilaahay subxaana watacaala muslimiinta waa badbaadiyey, nabad bayna ku tageen dhulkii xabasha. nabiga calayhi salaatu wasalaam dacwadiisii ayuu maaragtay meeshaasi kasii waday, dadkii inuu maaragtay qur-aankii gaarsiiyo, islaamkii gaarsiiyo, tawxiidkii gaarsiiyo. gaaladana waxay mar kasta ku dadaali jireen in dadku aysan qur-aanka maqlin, leanna xujo ay qur-aankan kaga hortagaan oo maaragtay baraahiintiisa iyo adiladiisa cadcad ay ku waajahaan ma haystaan. arrinta keliya u furan waa maxay? in dadka ay u diidaan inay maqlaan. waxyaalihii ay samayn jireen oo aan kasoo sheekeynay oo maaragtay ka mid ahayd maaragtay in nabiga calayhi salaam magacyo u bixiyaan iyo inay tashwiish iyo dacaayada ay ku furaan, kulligood waxay qayb ka ahayd dadka inay ka hor istaagaan inay nabiga calayhi salaam wax ka maqlaan. kuwa kaliya kuma aysan ekaysanin, waxay yiraahdeen quraanka markuuba akhrinayo yani buuqa oo maaragtay dadka aysan quraanka maqlin. markuu nabiga calayhi salaam bilaabo inuu dadkii waaniyo wax u sheego oo aayaadkii quraanka ku dul akhriyaba, qolaa maaragtay gaalada u xil saartay baa buuqi jiray oo maaragtay tashwiish oo coda ku furi jiray maaragtay si dadku aysan quraanka u maqlin ama aysan aayaadkiisa maaragtay qulubtooda ugu gudbin. waxay dhihi jireen maaragtay laa tasmacuu lihada alqur'aani walgaw fiihi lacalakum taglibuun. bartaas bay rabaan inay maaragtay guul ku gaaraan yani maaragtay. laakiin yani maalin baa ilaahay subxaana watacaala wuxuu qadaray in ayagoo xaramkii jooga oo aanan filanaynin markaana tiro badan ay ku joogaan ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku mufaaji'eeyey inuu maaragtay aayaadka suuratu najm inuu ku dul akhriyo. marka runtii aayaad aad maaragtay qalbiga u gilgilayo weeye, qur-aanka o dhan baaba ah marka, laakiin suuratu najm runtii macaani cajiib badan iyo maaragtay balaaqadaas iyo aayaadka gaagaaban oo qalbiga gilgilaya ayay runtii xambaarsan tahay. marka aayaadkii markuu ku dul akhriyey uu suuraddii dhammeeyey oo runtii aayaadka weliba ugu dambeeya maqtaca ugu dambeeya yani ilaahay subxaana watacaala iyo sifaadkiisii iyo awoodiisa iyo maaragtay tilmaamay, kadibna nadiir iyo maaragtay dejinyo cadcad maaragtay lagu soo gabagabeeyey ilaa markii dambe maaragtay aayadda ugu dambeysa ay tahay fasjuduu lilaahi wacbuduu. maaragtay allahaas maaragtay cadiimka ee laga soo sheekeeyey u sujuuda oo maaragtay keligii caabuda. nabiga calayhi salaatu wasalaam waa uu sujuuday, kadibna muslimiintii wixii meesha joogay waa ay sujuudeen, kadibna gaaladii ayagii dhan maaragtay wixii meesha joogay waa ay wada sujuudeen. riwaayadka qaar waxay sheegayaan hal odayo maaragtay oo da ahaan macnaha aan sujuudi karin cara yaraa loo soo qabtay, caradii madaxa saartay maaragtay. qur-aankii baa maaragtay yani awoodiisii iyo ta'thiirkiisii bay maaragtay yani baa saameeyey oo maaragtay xamili waayeen oo ay markaa yani la wada sujuudeen. arrintii markay dhacday oo maaragtay la kala tagay yani gaaladii waxay bilaabeen meeshii ay maaragtay arrintan ku fikri lahaayeen oo ay go-aanka munaasibka ay qaadan lahayn ilaah reede annagaaba qur-aankan qulubteena u furine dhageena u furine bal maanta aan maaragtay bal dib ugu noqono maaragtay ku fakarno oo aan ilaahay subxana watacaala isku dhibno meeshay dhihi lahaayeen
waxay bilaabeen inay is eedeeyaan oo yidhahdaan maxaa idinka khaldan, kuwii aan meesha joogin oo aan ka qayb galinna kuwii joogay eedeeyaan, kuwii joogay laftirkooda ayaga is eedeeyaan oo ay haddana dulmigii iyo gaalnimadii meesheeda ay kasii bilaabaan ayay maaragta sameeyeen. laakiin akhbaartii ayaa faaftay oo waxay gaartay maaragta raggii xabasho u hijrooday ayay gaartay, laakiin si aanan sida saxda ah u dhaceen ahayn. waxaa warka uu ku gaaray in reer Maka gebi ahaanba inay islaameen, warka qaabkaas ku gaaray maaragta. marka meeshii marka warkaa gaaray waxay yiraahdeen haddii qoomkeen islaameen meesheenii aan ku noqonaynaa magaaladeeni, qurbadaan iyo wax maaragta hadda yani nagu kalifaya ma jiro. marka tiro macquul ay kusoo noqdeen oo ay maaragtay dhankii Maka usoo laabteen. kadib markii ay soo dhawaadeen magaalada kusoo dhawaadeen arrinta xaqadeeda ogaadeen siday u maqleen inaysan ahayn, qaar baa marka noqday, qaarna maaragtay iyagoo isqarinaya habeennimo ayay magaalada soo galeen. gaaladii markii ay maaragtay arrintan dhacday ciil iyo xanaaq bay ka qaadeen, waxay sii labalaabeen dagaalkii ay muslimiinta ku hayeen iyo dhibaateyntii ay ku hayeen ayay aad u sii labalaabeen. muslimiintiina culeyskii waa ku batay. markaan mar labaad ayaa maaragtay muslimiintii hijro labaad oo dhankii xabashaha ay u dhaqaaqeen, oo weliba tirada markaan ay ka badan tahay tiradii hore ilaa 83 qof, 82 ilaa 83 ayaa maaragtay riwaayadku ay sheegayaan. tiro badan oo rag ah, 80 rag ah iyo maaragtay 8 ilaa 9 haween ah ayay maaragtay ku hijroodeen oo maaragtay dhankii xabasha ay ku aadeen. gaaladii waxay aad uga xumaadeen in tiro badan oo muslimiintii ka mid ah inay maaragtay nabadgelyo iyo ammaan ay ku heleen dhulka xabasho oo ay diintoodii ku haystaan. arrintii bay aad u dhibsadeen. marka waxay go'aansadeen in ay maaragtay wafdi u diraan, xabasho ay u diraan si raggaa loo soo celiyo oo meesha maaragtay marka lagu soo celiyo oo dhibaateyntii lagu hayay lagu soo celiyo, diintoodiina laga fidneeyo. arrintii bay qorsheeyeen. waxay u xilsaareen 2 nin oo maaragtay kale ah Camr ibn al-Caas iyo Cabdullaahi ibn Abi Rabiica. labadoodaba intaysan islaamin ka hor ayay ahayd. marka waxayna ahaayeen 2 nin oo maaragtay caqli badan, maaragtay aad u caqli badan bay ahaayeen. Camr ibn al-Caas weliba yani daahiya ayaa lagu tilmaami jiray, in aad yani daki u ah ayuu ahaa. marka labadoodii baa loo xilsaaray arrintaa inay kala soo hadlaan boqorkii Najaashi. way baxeen, waxay qaadeen hadaayaad fara badan ayay qaadeen, qaarna ay ugu talagaleen boqorka, qaarna ay ugu talagaleen ragga boqorka ka agdhow oo maaragtay u badnaa wadaadadii maaragtay nasaarada u badnaa. marka hadaayaadkii soo qaadeen, waxay tageen xabasha. marka ugu horeysa waxay ka bilaabeen raggii boqorka ka agdhowaa ayay ka bilaabeen. hadaayaadkoodii u qaybiyeen, waxayna maaragtay u sharxeen arrintan ay u yimaadeen, waxayna ka codsadeen inay arrintaa ku taageeraan boqorka hortiisa, oo ay maaragtay weliba inuu boqorku ku wareejiyo raggan asagoona ragga waxba ka dhegeysanin. wax kasta iyaga waxaa ugu daran in nimanka wax laga dhegeysto, laanna haddii wax laga dhegeysto waa niman xujooyin cadcad haysta, adilla maaragtay qofkii dhegeysto oo maskaxda furana maaragtay uu maaragtay ku qancaya haysta weeye. marka waxay rabaan inaan waxba laga dhegeysanin oo arrintan makri lagu dhameeyo oo raggii lagu wareejiyo. sidaas ayay doonayeen macnaha. boqorkii bay la kulmeen, waxay ku yiraahdeen boqorow maaragtay waxaa magaaladaadii ama maaragtay dhulkaagii soo aaday wiilal maan gaaban oo aan maaragtay garaad badan lahayn oo diintii qoomkooda ka baxay, diintaadan aan soo gelin, la yimid diin aan la garanaynin maaragtay ay la yimaadeen. annagana waxaa na soo diray yiraahdeen odayaashii magaalada Maka ayaa na soo diray, ashraaftii, oo ay ku jiraan wiilashan aabbayaashooda iyo maaragtay adeeradooda iyo raggii mas-uulka ka ahaa ay ku jiraan ayaa na soo diray. marka boqor waxaan kaa codsanaynaa inaad nagu wareejiso si aan odayaashii mas-uulka ka ahaa aan annaguna ugu wareejino. ayagaana garanaya waxa ay ku haystaan oo ay ku eedeeyeen, ayagaa garanaya bay yiraahdeen. nimankii boqorka agdhowaa baa hadlay, waxay yiraahdeen boqorow nimankan run bay sheegeen, waana maaragtay arrin gar ah, waxaana habboon inaad maaragtay ku wareejiso oo ay maaragtay qoomkoodii iyo dadkii mas-uulka ka ahaa ay ku celiyaan. boqorku waa uu diiday, wuxuuna maaragtay yiri waxaa qasab ah in nimanka ayagana aan dhegeysto. maaragtay nin caadil ayuu ahaa. cadligan waxyaalaha ugu horeeya waxaa ka mid ah in 2 qolo oo is haysata aadan hal qolo wax ka dhegeysanin. waa arrin dad badan ay ku aafoobaan. qoladaas maaragtay si kasta warkooda u qurxoon yahay, isugu aadan yahay, maaragtay aad moodo inuusanba
wax kalaba jiri karin, lama rabo inaad qolada kale dhegeysato, waa inaad qolada kalena dhegeysataa. ma garatay? marka wuxuu yiri waxaa qasab inaan nimankaan aan dhegeysto maaragtay. marka waxaa loo yeeray, saxaabadii baa loo yeeray, waxaana maaragtay boqorkii baa la hadlay. wuxuu yiri waa maxay diintan aad maaragtay la timaadeen oo aad qoomkiina diintooda inaad kaga baxdeen, teedana aadna ku gelin, waxa diimo kale meelaha ka jiran inaan gelin, waa maxay diintan aad la timaadeen? marka saxaabadii waxaa u hadlay Jacfar ibn Abi Talib ayaa u hadlay. wuxuu yiri maaragtay wuxuu suureeyey waaqicii ay ku jireen islaamka ka hor ayuu suureeyey. wuxuu yiri boqorow, anagu waxaan ahayn dad jaahiliya ah oo maaragtay dhunsan baan ahayn, waxaan caabudi jirnay asnaamta, ayaan caabudi jirnay, maaragtay baktiga ayaan cuni jirnay, xumaanta noocyadeeda kala duwan ayaan samayn jirnay, marka qaraabadii baan goyn jirnay, dariskii baan maaragtay aan xumayn jirnay, aan maaragtay aanan wanaajin jirin. waxaan ahayn qolo nin kastaba ninku ka awood badan yahay dulmiya ee maaragtay yani xaqiisa duudsiya ayaan ahayn. annagoo xaaladdaa ku sugan ayaa ilaahay subxaana watacaala wuxuu inoo soo diray rasuul aan garanayno nasabkiisa, dhaqankiisa, yani akhlaaqdiisa aan garanayno. waa kasoo sheekayna nabiga calayhi salaatu wasalaam sifaadka iyo akhlaaqda uu lahaa, waxay ahayd wax magaalada maka o dhan looga jecel yahay oo maaragtay kulligood ay maaragtay ku qadarinayaan ayuu ahaa. marka qof aan garanayno ayuu ilaahay subxaana watacaala noo soo diray oo ilaahay maaragtay noogu soo dhiibay risaaladiisi. wuxuuna rasuulkaa noogu yeeray in alla subxaana watacaala waxidno oon cibaadada alla u gaar yeelno ayuu noogu yeeray maaragtay. dhanka kalena aan maaragtay ka fogaano oon ka beri noqono wax alla wixii alla subxaana watacaala ka sokay oo aan caabudi jirnay. waa tawxiidka labadiisii qayb wey. qaybna waa maxay? cid kastoo alla subxaana watacaala ka soo harta oo maaragtay la caabudo inaad ka beri noqoto oo aad maaragtay ka fogaato. alla subxaana watacaalana cibaadadii inaad u gaar yeesho way tawxiidka maaragtay labada rukni uu ka kooban yahay. kadibna waxyaalihii wanaagsanaa uu nabiga calayhi salaatu wasalaam amray ayuu tiriyey. wuxuu yiri wuxuuna amray runta, ayuuna amray ammaanada, qaraabada oo la xiriiriya, dariska oo la wanaajiyo, ma garatay, xumaanaha kala duwan iyo dulmiga oo maaragtay laga fogaado, fawaaxishta iyo waxyaalaha maaragtay qurunka laga fogaado, ma garatay. waxyaalihii uu nabiga calayhi salaatu wasalaam amray oo wanaag ah ayuu tiriyey. wuxuu kaloo haddana ku soo xiray tii uu ku bilaabay ayuu mar labaad ku soo xiray oo tawxiidka ah. wa amarna an nacbud allaha waxdahu laa nushriku bihi shay-an. alla subxaana watacaala keligii inaan cibaadada u gaar yeelno oo cid kalena aan la wadaajinin ayuuna amray, ayuu haddana markii labaad haddana ku soo xiray. kadibna maaragtay acmaashii wanaagsaneed, salaadii, soonkii, zakadii, waxyaalihii uu maaragtay nabiga calayhi salaatu wasalaam umuurta islaamka ayuu tiriyey. marka wuxuu yiri nabiga marka anagaan rumaynay oon raacnay, wuxuu ilaahay agtiisa kala yimid baan ku raacnay, ilaahay baan cibaadadii u gaar yeelnay, shirkigii baan ka fogaanay, wuxuu ilaahay noo xalaaleeyey keliyaan xalaashanay, wuxuu ilaahay naga xarimayna waan ka fogaanay, waan maaragtay xaraam bay agteena ka noqdeen. taana iyadan waxay suuraynaysaa wixii ay maaragtay jaahiliyada ay ku sugnaayeen inay maaragtay ayagu odayaasha wax u xalaaleyn jireen oo ay maaragtay wax ka xarimi jireen. waxaan kasoo sheekeynay ninkii bilaabay arrintaa inuu ahaa fii bilaad alcarab camr ibn ulxay ninka la dhihi jiray, oo markaa maaragtay asnaamtii markuu keenay kadibna taxliil iyo taxriim shuruucna u sameeyo, wax u xalaaleey waxna ka xarimo, maaragtay xoolihii uu maaragtay kuwa la raran kara iyo kuwaan la raran karin iyo kuwa la gowraci kara iyo kuwaan la gowraci karin u kala xadiday, wuxuu jeebkiisa ka keenay. wixii oo dhan bay marka ka beri noqdeen muslimiintii oo waxay noqdeen qolo alla subxaana watacaala keliya ka qaadanaya noloshooda qaabkii u noolaanayeen. wuxuu alla u xalaaleeyo inay xalaal ka dhigtaan, wuxuu alla ka xarimo inay xaaraam agtooda ka yihiin. arrintaas baan sameynay u dhahay, nabigaas baana raacnay. qoomkeenii marka maxay sameeyeen? way nagu soo maaragtay xadgudbeen, dagaal bay nagu soo qaadeen, waxay isku dayeen diintan inay naga fidneeyaan, inay noo celiyaan maaragtay wixii aan ka soo baxnay oo uu ka soo sheekeeyey faalxumada ay lahaayeen inay nagu celiyaan bay maaragtay isku dayeen. waxay rabeen inaan maaragtay asnaamtooda iyo baadilkooda la caabudno, wixii aan marka hore xalaashan jirno oo xumaanna aan maaragtay xalaashanno ay noogu yeereen oo ay maaragtay nagu qasbayaan oo ay nagu dhibayaan. markuu dhibkoodii nagu batay oo ay naga hor istaageen inaan diinteena si nabada aan ugu dhaqanno u haysano, ay naga hor istaageen ay anagu waxaan soo aadnay dhulkaagaan soo aadnay, ummadahaas oo dhan adiga ayaan kaa dooranay, waxaana rabnay inaan daris kula noqono, meeshaan kugula noolaano, waxaana rajaynaynaa oo aan maaragtay ku hanweynaa inaan agtaada nala ku dulminin ayay yiraahdeen. marka intaa markuu Jacfar yiri runtii aad buu maaragtay u dhageystay Najaashi warka,
wuxuuna ahaa nin garanaya diintii maaragtay nabi ciise kitaabkii injiil garanaya wuxuuna ogaa in nebi lasoo diri doono oo waqtigiisii la gaaray ayuu maaragtay garanayay marka wuxuu ku yiri waxyaalihii maaragtay nabigaa la yimid oo alla agtiisa uu kala yimid wax ma ka haysaa markaas wuxuu ku dul akhriyay Jacfar aayaadka ugu horeeya ee suuratu Maryam ayuu ku dul akhriyay markaas buu aad ugu ta'athuray Najaashi la ooyey garkiisina eelintii ay maaragtay qoysay wadaadadii maaragtay laftirkoodii ay ooyeen oo maaragtay iyagana masaaxiftoodii ay ooyintii la qoyday markaas buu wuxuu yiri arrintan maaragtay iyo wuxuu nabi ciise la yimid waa hal meel bay ka wada yimaadeen waa Allah subhanahu wa ta'ala ay ka wada yimaadeen marka cid aan idin gacan gelinaya ma jirto ayuu yiri meeshii bay marka Camr ibn al-Aas iyo Abdullah ibn Abi Rabi'a ay ku hungoobeen markii ay ragina waa la fasaxay marka Camr ibn al-Aas ayaa haddana fakaray wuxuu la hadlay Abdullah ibn Abi Rabi'a wuxuu yiri bari baan ku noqonayaa waxaana maaragtay la imaanayaa wax aan arintooda dhanba ku soo gabagabeeyo ayaan la imaanayaa buu yiri marka Abdullah ibn Abi Rabi'a xogaa la hadlay wuxuu yiri Camrow saahayelin nimanku waa qaraabaan nahay marka xataa haddaan iskhilaafnay maaha inaan maaragtay yani aan dhib weyn u geysano uu diiday Camr ibn al-Aas arrintiisa ku adkaystay subaxii ayuu Najaashi u tagay boqorkii buu la hadlay wuxuu ku yiri nimankaani oo aad fasaxday shalay waxa waaye Ciise ayay waxay ka leeyihiin hadal aad u culus ayay ka leeyihiin buu yiri marka wuxuu ogyahay nasaaradu inay nabi Ciise ka aaminsan yihiin inuu yahay wiil Ilaahay inuu yahay ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira marka muslimiintuna ay ka aaminsan yihiin inuu yahay adoon Ilaahay oo rasuul Ilaahay soo diray uu yahay marka waxaa loo yeeray muslimiintii baa loo yeeray muslimiintii markii ogaadeen arrintan la weydiin rabo waxa way runtii way tashteen maaragtay isku yimaadeen arrintuna waa runtii arrin aad u culus maaragtay marka wixii ay dhihi lahaayeen way iska wareysteen marka waxay ku heshiiyeen in ay runta ka sheegaan wixii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala nabi Ciise ka yiri oo nabiga calayhi salaatu wasalaam soo gaarsiiyey in ay u sheegaan boqorka wax alla wixii ka dhalanaya ka dhashaan ma garatay ka dhalatay inuu boqorka xanaaqo arrintan maaragtay dhan oo nasaarada diintooda ay ku dhisan tahay oo yacni ay dagaal meesha kaga yimaado la ceeriyo oo ibkii ay ku jireen iyo dhibka badan ay galaan ay ka dhalan karto laakiin waxay yiraahdeen waa inaan runta ka sheegna meeshaas waxaa ka cadaaday manhaj ducaadda la rabo inay raacaan waa maxay si kastoo duruuftu ay tahay adigu waxaa laga rabaa xaqa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala agtiisa ka yimid inaad si ammaano leh adiga alla fariin alla agtiisa ka timid baa dadka u wadaa wax adiga awdatid maaha duruufta markay isbedesho inaad adiga fariintii wax ka bedeshid maaha waa wixii alla agtiisa ka yimid inaad sideedii u gaarsiisid ma garatay laakiin inaad xaqii wax ka bedeshid oo aad tiraahdo maaragtay saan hadda iraahdo waa la maaragtay waana la baabi'inayaa marka warkii aan nus kamida sheego yaana wada sheegin ama war khaldan aan sheego taa maaragtay manhajka dacwada ka mid maaha dacwada manhajkeeda waa maxay waa si ammaano leh inaad fariinta ku gudbisid adiga fariin baad wadaa fariintaada waxaa la rabaa inaad si ammaano leh aad ku gudato sidii bay marka saxaabadii sameeyeen waxay maaragtay Najaashi bay u tageen waa la weydiiyey waxay yiraahdeen waxaan ka dhahaynaa wixii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala iyo rasuulkiisa ay ka yiraahdeen waxay yiraahdeen nabi Ciise waa adoon Ilaahay iyo rasuulkiisa weeye oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala awoodiisa ku abuuray maaragtay Maryam al-Cadraa al-Batuul dhexdeeda Ilaahay ku dhex abuuray aabba la'aan uu ku dhex abuuray marka arrintii markii uu maaragtay Najaashi dhageystay wuxuu yiri wallaahi nabi Ciise xaqiiqadiisii siday ahayd baad u sheegtay waxba iskama bedelin wuxuu soo qaaday maaragtay wax yar oo maaragtay dhulka ka soo qaaday cuud yar yani waa wax yar oo faliq yar soo qaaday uu yiri kan kama u duwana maaragtay yani wax xaqiiqadii siday ahayd baa u sheegtay marka nasaaradu intooda badan waxay ahayd dadka dhunsan maaragtay aaminsan nabi Ciise inuu yahay wiil Ilaahay inuu yahay ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira laakiin rag waxaa jiray maaragtay xaqiiqada sida tahay oo haysta oo maaragtay nabi Ciise inuu adoon Ilaahay rasuul Ilaahay yahay aaminsan marka ragga ayuu kamid ahaa Najaashi laakiin raggii meesha fadhiyay wadaadadii ahaa aad bay u xanaaqeen arrin ay ogol yihiin ma aysan ahayn wuxuu yiri waxaa doontaan sameeye marka wuxuuna yiri muslimiinta aaminiin baad dhulkayga ku tihiin cidna idinma taaban karto qofkii idin aflagaadeeyana waxaa waaye ganax baa fuulaya maaragtay iska daa qofkii dhib idin geysta marka raggaana wuxuu yiri labada nin hadaayadkooda ha loo celiyo maaragtay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala boqortinimadeeda markuu ii soo celinay waa boqornimada laga xoogay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala u soo celiyay marka markuu Ilaahay ii soo celinay Ilaahay loo sheega ma qaadan yiri haddana aniga inaan dad
xaq haysto oo wanaagsan oo maaragtay la dulmiyey inaan laaluush inta qaato aan iyagii dulmigooda qayb ka noqdo suurtagal maaha buu yidhi macnaha. meeshii ayay marka camr ibn alcaas iyo cabdullaahi ibn abi rabiica guuldare ay kala soo noqdeen oo ay maka ku soo noqdeen, muslimiintiina ammaan iyo nabad ay ku noolaayeen fi ardi alxabasha. waqti dheer ayay markaa meeshaasii joogeen, qaar ka mid ay soo noqdeen laakiin qaar badan meesha ay joogeen ilaa waqti dambe ay soo noqon doonaan insha allahu tacaala. qeybaha dambe siirada ayaan kaga sheekeyn doonaa haddii ilaah yiraahdo. halkaa ayaan ku ekeenaynaa xalaqadeenna. intaan xalaqo kale kaga kulmi doono waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.